arrinkaas iyo warkaasi waxa uu ahaa war been ah oo been abuur ah oo ka dhashay cajalad la isku kabkabay oo inba meel laga soo gooyay taasoo ujeedooyin kala duwan iyo meelo kala duwan iyo weerayo oraha kala duwan loola jeeday anigu ka qof ahaan sinaba suuragal uma aha dadka ugu sharafta badan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool deegaanada Buuhoolda iyo Laascaanood iyo Ceerigaabo Burco iyo dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka dibadiisaba inaan wax aflagaado u eeg ama xumaan u eeg aan ku idhaahdo halkan Laascaanood deegaanadaas oo dhammaan waxay noqdeen deegaano waraabiya oo ay suuragal ka tahay inay ka soo galaan waxyaabaha mamnuuca qaranka ka ah qofka ibni aadamka haddaanay wadaniyadi riix ahayn haddaanu dhaqan suubanin wiix ahayn haddaan diin iyo akhlaaqi riix ahayn waxa uu doono uu sameynaya kama duwanaanayo xoolaha waxaan doonaynaa in wadaniyadu ay shaqeyso wadanka haddaynan inagu hagaajin haddaynan daryeelkiisa la iman haddaynan wadaniyad la iman aan hadlayay waxa uu ku saabsanaa hadal goobo kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan aan ku socday oo ka kala dhacay gobolada Saaxil iyo Togdheer isla markaana aan la hadlayay qaar shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo aan lahaa qofka shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa waajib qaran ku ah inuu hantida ummadda ilaaliyo isaguna iska ilaaliyo sidaa darteed inuu diin yeesho dhaqan wanaagsan oo suuban u yeesho akhlaaqna uu yeesho marna waxaan ka hadlaynay bacihii kontrabaanka ahaa ee aan gubaynay bacihii kontrabaanka ee aan gubaynay iyo hadalladiiba la isu keenay kontrabaankuna dalka oo dhan meel kastaba uu ka soo galaa oo dad kala duwan ayaa soo geliya mid walba halkii lagu qabto ayuun baa lagu qabtaa wuxuu doonaba ha noqdee gobol gaar u ah in kontrabaan iyo xumaan ka shaqeeya ma jiro arrintii iyo ujeedada horta sidaas ayay ahayd